أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. حالي عبارة سقالكي هي صدن دقيقة أيها قواريشتو waxay weerar dhuumaalaysi ah ku qaadeen hotel SYL ciidanka nabadgelyada oo si degdeg ah uga jawaabaya saacada kadib wuxuu banaanka soo dhigay shantii qawaariista ee gudaha u gashay hotel SYL halka waxa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jirta qasaaraha hotelka gaaray ka bacdi shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxa ka dhaawacmay 27 qof 9 askari iyo 18 shacab ah halkaas waxa ku naf waayay ciidan gaaraya 3 askari xaaladda hadda waa nabad qabtaa nabadgelyo fiican baa jirta hotelkiina waa nabad weeye xildhibaanadii iyo intii hotelka deganayna hadda dib ayay ugu soo noqonayaan xaaladda amniguna hadda sideedii hore ayaa lagu soo celiyay waa mahadsantiin sidee ku suurta gashay hotelkan waxa uu ku yaalaa madaxtooyada horteeda baraha control wadooyinka soo gala aad baa loo ilaaliyaa ummadda u sheeg yaa fududeeyay yaa mas'uuliyadaas lagu xisaabtamaya oo loo soo qabtay arrintaas baaris ay ku jirtaa hay'adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay ma aragtay wax u dhaceena baaristeedii waa la daba joogaa xaaladdu hadda ilaa iyo haddeertaan baaris ay ku jirtaa dhacdaduna waa ay cusub tahay ciidankuna ka dabatagiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye insha Allah si fiican baana arrintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha abeer ma jiraan xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo ku dhaawacmay weerar 3 xildhibaan baa jira waana dhaawac fudud waa shaqo tageen haddana waa ay shaqeynayaan xukuumadda ku jira dadka dhaawacmay dhaawac fudud weeye asaguna waa mahadsantiin aad u mahadsantiin